baduhu waxay daboolaan 70% oogada sare dhulka waxayna soo saaraan 50% oksijiinta aan neefsano waxayna ka qayb qaataan yareynta neefta sunta ah ee aan soo celino ee carbon dioxide haddaba ka waran haddii gebi ahaanba la waayo biyaha badaha maxaa ku dhici lahaa dunida iyo noolaha ku nool haddaba daawade dhamayso muuqaalkan si aad u ogaato baduhu waxay u taagan yihiin 97% ilaha laga helo biyaha sida awgeed waxay qayb weyn ka qaataan dheelitirka cimilada guud ee dunida iyagoo inta badan nuuga kulaylka falaaraha cadceeda kadibna si islaag ugu qaybiyo qaybaha kala duwan ee dunida taas oo ka hortagayso in meelaha qaar noqdaan kulayl ama qabow xad dhaaf ah sidoo kale umibaxa ay sameeyaan biyaha badaha waxay qayb ka qaataan wareegga biyaha macaan iyagoo marka ay hawada tagaan isu bedelo daruur dibna ugu soo daa dhulka sidoo kale sida aan horey u soo sheegnay waxay soo saaraan 50% oksijiinta aan neefsano iyagoo sidoo kale yareeyo ama nuuga neefta sunta ah ee carbon dioxide haddaba maxaa dhici lahaa haddii la waayo biyaha badaha ugu horeyn waxaa meesha ka bixi lahaa doorkii ugu weynaa ay ka qayb qaadanayeen dheelitirka cimilada guud ee dunida iyadoo meelaha qaar ay noqon lahaayeen kulayl xad dhaaf ah halka meelaha qaarna ay noqon lahaayeen qabow aan loo adkeysan karin ama lagu noolaan karin taas oo keensanayso in ugu dambeyn dhulku uu shiilmo una ekaado midabka meeraha noo dhow ee faynas iyo sidoo kale inay qalalaan gebi ahaanba ilaha biyaha yar ee noo soo haray sida webiyada iyo harooyinka biyaha macaan maalmo yar uun gudahood taas oo sababayso dhammaadka nolosha aadanaha iyo dhammaan noolaha kale sanado yar uun kadib dhulku wuxuu isu bedeli doonaa dhagxaan saxaro ah oo aysan ka jirin haba yaraatee wax nolol ah